maamulka degmada Luuq ayaa ka qayb galay kulan lagu soo bandhigay buug loogu magac daray haweenka iyo tacadiyada loo geystay sida warkaasi noogu soo diray waryaheena degmada Luuq inooga soo warama Cabdiwali Yuusuf Caabi. kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigay buug loogu magac daray doorka haweenka iyo tacadiyada loo geystay haweenkii Soomaaliyeed oo qoray wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay degmada Luuq waxaana kulankan ka soo qayb galay madaxa mashaariicda degmada Nuur Xuseen Cali gudoomiyaha ururka haweenka degmada Mama Xareeda Xasan Yarow oo door muhiim ka qaatay buugga iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Yuusuf Maxamed Cabdi iyo hay'adda Saduro oo qaabilsan xuquuqda haweenka iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay madaxa mashaariicda degmada Nuur Xuseen Cali oo ku tilmaamay inuu haweenka Soomaaliyeed buuggan u leeyahay ahmiyad gooni ah. فكرك أو سمية إن لو قدينا وين جعلها برينا حكى قدينا بشير وحكى السيدة ومهتسيها إنه اليوم بواكل صقرة أو حكى كهلاي حكى نفتي قد متى مرمر بي قد كبحر قالت كإنه حكى لشلو شاو ويجي إنه حكى لشاو تمرك حوض ولا جهنم إن بدل نوع عليها نوجعلها برشة جود هنا وقت كهلايسو شرعي هكذا ضوع وجعلها marka buugan hal kordhiyo degmooyinka la faafo si loogu daydo taariikhna uu noqoto Luuq waa magaalada ugu weyn gobolka Gado waa magaalada qolo kasta ay degan tahay 30 dhowr qabiil baa degan waa magaalooyinka marka dawladda jirtay la muranka ahayd aad baan ugu mahadcelinayaa Bashir Yuusuf Caabi oo ah nin dhalinyaro aqoon-yahan ah haddaan hay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Luuq mana aynan dad garuub ah oo hay gudoomiyaha gabar kasta oo degmada Luuq iyo deegaankeeda iyo nawaaxigeeda ku nool baan gudoomiye u ahay waan soo dhaweynayaa intaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayaa wayna farxad gelinaysaa waxaan jeclahay adinkan inay sidoo kale idin farxad gelinaysaan jeclahay runtii markii laga hadlayo tacadiyada iyo doorka haweenku ay leeyihiin waa wax aad u fara badan runtii meelo badan bay taabanaysaa markii laga hadlayo doorka haweenku ay iska leeyihiin iyo tacadiyada ka dhanka loo geysta haweenka iyo gabdhaha buuggaasna in la wada gadan doono waxaan u malaynayaa inuu shoobin ku yeelan doono ee degmada Luuq dhexdeeda iyo meelo laga gato gaar ah loo furi doono ama hadda way u furan tahay waxaan leeyahay Bashir Yuusuf Caabi soo dhawow qofka koowaad oo hadda buug soo bandhigay waa tahay waxaan ku leenahay kuwa kale oo ka dambeeyna in la heli doono waan filaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan u maleynayaa fariintii ahayd in aad qaadatay iyo fariinka sii horeysayba fariintii ahayd wixii dadkeena oo ka dhiidhiya dhibaatada dhallaanka iyo hooyada dhibta aan ka dhoornay way dhaliila badatay dhibta aan ka dhoornaa gabdhaheena cadarka casriga ma joogaa cidla bay ku sugan yihiin ciidan aan u noqona cadowgana ka dhicina waxaan u maleynayaa fariinta ayada ahayd inaad qaadatay iyo fariin la mid ahba ka soo qayb galay xafladda quruxda badan waa xaflad aad u qiiro badan waayo oo maanta lagu soo bandhigay buugan Bashir Yuusuf Caabi waa walaal aad igu qaali ah waa walaal mataqaanay waqti badan ilaa dugsi hoose class 4 aan kala soo bilownay ilaa aan isla dhamayno haddana wali aan jaamacad isla wadno ma sha Allah Bashir aad ayaan ugu mahadcelinayaa maanta wuxuu sameeyay dadaal aad u qiimo badan oo ah buugan quruxda badan oo noocan ah inuu qoro aniga waxa weeye buugan waxaan go'aansaday dadkii ugu horeeyay oo qaatay inaan noqdo oo gatay inaan noqdo buugan horta marka laga hadlo doorka haweenka runtii buugan anaga bulshada reer Luuq ahaan laba qiimo oo noogu fadhiya qiimaha koowaad in adduunka ogaadaan inay reer Luuq leeyihiin hal doorkaas oo wax qori kara wax ka qeybin kara iyo inay leeyihiin waxa waayadii dhaweyd kufsiyo badan dhacay inay ka soo jawaabeen waxyaabihii dhacay siday ugu xiyeen labadaas qodob buugan ugu koobsaday haweenka waa lafdhabarka ummadda marka qof walba inuu ixtiraamo hooyadiis ka bilaabo eedadiis abriirtiis walaashiis dariskiisa qof walba oo joogo waa inuu ixtiraamo Bashir Yuusuf Caabi waa qoraaga buugan qoray waxaana taariikh ahaan dhashay 1995 waxaana dugsi dhexe iyo sare ku dhameeyay degmada Luuq ee gobolka Gado waxaana noqday qof kaliya oo ka soo dhaxdhalaalay bulshada dhexdeeda isla markaana ka dhiidhiyay dhibaatada loo geysto haweenka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan si qaas ah aga mahadceliyo hooyaday Ibrahim Maxamed Axmed oo ah qofkii
ka dambeeyay iguna dhaliyay inaan soo saaro buuggan asaga ah sidoo kale halkan waxaan rabaa inaan si qaas ah uga mahad celiyo walaashay Gini Yuusuf Caabi ahna quruxda hooyaday iyo dhammaan asxaabta meeshaan wada joogta dhalinyarada Soomaaliyeed ee degmada Luuqanaane anigoo kala reebayn sidoo kale buuggan soo saaridiisa waxa ka qayb qaadatay inaan daayar Sahra Maxamed Axmed oo runtii ah gabar ka badan xambaarta ka qayb qaadatay buugga inay soo saarto ayadana aad baan ugu mahad celinayaa ugu dhaliyay inaan soo saaro in muddo ay soo socdo qoraalkiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala yani ugu guulaysin oo aad soo baxo waxaa soo ugu dhaliyay inaan soo saaro tacdiida ka dhanka ah loo geysta haweenka taasoo markaan soo hana qaaday ama aqli aan soo yeeshay ilaa haatan la taagan yahay aan kala go' lahayn isku si u socdo hadii jeerna aan maqlayo midba midda ka xun tii ugu dareen ahayd tii Caaisha ee ka dhacday gaalkacyo intii la kufsaday haddana misna la dilay Cabduwali Yuusuf Caabi TV-ga caalamiga ee Royal 24 magaalada Luuq